wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in xukuumadda Jabuuti ay go'aansatay inay joojiso heshiiskii maalgashiga ah ee marsada Dooraale oo ku taal dalkani Jabuuti ay kula jirtay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka. war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ayaa waxaa kale oo lagu sheegay in go'aanka xukuumadda Jabuuti ay joojinta heshiiska maareynta marsada Dooraale ee DP World uu waafaqsan yahay xeerka tirsigiisu yahay eber 8 November 2017 ee ku aadanaa dhowrista iyo sarraysiinta aayaha iyo danta qaranka kolka ay joogto madax bannaanida dhaqaale ee qaranka. war-saxaafadeedkan waxa uu intaasi ku darayaa in xukuumadda Jabuuti ay samaysay isku day walba oo la xiriira sidii isfaham iyo xal loo heli lahaa hase ahaatee arrintaasi uu ka dhaga adeegay agaasimaha DP World u fadhiya waddankani Jabuuti waxaana taa beddelkeeda dowladda Jabuuti ay si rasmi ah go'aan ugu gaadhay in ay kala noqoto shirkadda DP World maareyntii iyo maamulkii marsada Dooraale. arrintaasi ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay maareeyaha boorarka Jabuuti iyo qaybta Free Zonka Abubakar Cumar Xadi waxa uu ka warbixinayaa isfaham waaga iyo waxyaabaha uu ka dhashay. waxa weeyaan horta dekedan aan joogno maanta oo Dooraale Container Terminal maalgelinta inteeda badan Jabuuti leh boqolkiiba 760 Dubayna waxa leedahay boqolkiiba 30 marka heshiiska aan sida ku wada galay dhowr qodob oo khalad ah ayaa dhex galay oo aan weydiisanay reer Dubai DP World inaan wax ka saxno min 2012 ilaa maanta way naga diideen taas 63 ayaan kala leenahay marka khaladaad aan dareennay oo ka aragnay agreementkan wala galay heshiiskan wala galay oo maalgelineed ayaan ka codsanay inay wax laga bedelo dhowrka qodob way naga diideen min 2012 ilaa maanta kana waxay wallahi ninka ka hadlayay maalinta dhawrito Jabuuti inuu yiraahdo horumarka Boosaaso iyo Berbera ayaa sovereignty wax yeelisa oo uu la wareegay dekadii kala wareegnay terminalka DP World walaxad ma shock ban qaaday يعني وضد ومض ويس عمليا وضد كسين حق له وجهي صور مريو لكن إن ليراه وضد كهور مركز وضد كي وحيليه ووح عن الدونك لقوا عرق وضد شهر النهاي ولا على النهاي ولي بعد الحين وهسنا وأمانه موقتها إن عندنا هنا إيه وحكى صويرة أو حق الدروي وي وحكى ما هي نقال نجارك ما كان أنت حن شغله inay shacabka reer Soomaaliland ay aad ay fariir ku noqonayso waxaan leenahay waddankan Imaaraadka heshiiska Beeska iyo heshiiska DP World labadaba cadaawad badan buu sameeyay marka hadda tagsi xamar caruurteedii baa lagu diray markaan saay Imaaraadka ay qiyaamay Imaaraadka in inqilaabiya waxaasoo dhan waxa loo sheegay maxaa Soomaaliland oo macaamish qofkii ku salaama xitaa salaal culubi iska daakii yani xasadka Soomaaliya ay Soomaaliland ku hayso marka arintaas aad iyo aad baan uga xunahay waxaan leenahay kumitida heshiiskaas iyo beesku wadanteena walaalkeenu adduunka ka gelinay walaalkan markii DP World qabtay Jabuuti mushaar ma haysan jirin maanta waa meeshii lagu jecel yahay adduunka waxa East Africa la infaskarayso waxa keentay taas soo jiiday maalgashiga DP World ay soo gashatay ayaa ka dhigtay 6 dekedood beeristeen waxa ka dhigay gateway-gii Afrika laga geliyay Chinese inaguna waa ka dhigay karnaa way American laba dawladood laakiin isxaasidaan ma waxa weeye Djibouti waxa laga yaabaa inay ka caarisan tahay jiraan shidaalka laga keenayo ogaadeen gaasta oo inaga inoo dhow inay isleedahay haday taas goolo idin kale keeni doona ogaasa mar kale injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu soo hadal qaaday in Djibouti oo aan lahayn kheyraadka xoolaha nool oo ay dibadda u dhoofiso ay dekadu samaysatay xoolaha ka dhoofi jiray dekadaha Somaliland ee ay xanibtay dawladda Saudi Arabia. Djibouti in for example Djibouti iyadoo xoolo lahayn ay dekad xoolo samaysay oo samaysay magaalada loo yacdo iyo u samaysay
xoolaheena u samaysay maalintii uu yidhi madaxweynuhu gees Africa oo dhan xoolahan ka baxayaan meesha ninkis dhigi baa naga xidhay inaga xoolii wixii wanaag geelina la geeniyo haddana inuu kamano hadal haddana waa arkay maanta dadka geelay diiwaanadii waxay tagayaan Djibouti tagaa mayn oran dhaqaalaha baa soo deeso qarankeeda ku tagaysa mayn oran iyagii markaa inuu ninkaas waxa ku hadlo inagoo xoolaheena arkino dekedeena caankeeda berberaawi adduunka dhan yaqaan ilaa maqaayad 17 shiriga xoolaheena maanta Djibouti oo dhaxa ku sii dhamaan xoolo waa siyaasad waa political waa siyaasad waana dad inaga dawlad jireen mar haddana inagu aynu isku jeedsano oo dawladda ayay maanta wadanka ayay aan shaqaalihiisu yar yahay 14 la magacaabo qabiilka loo abtirinayo oo dadkuba dawladnimada u qaateen shaqaale la qoriyo dawlad qoriso oo horumar biyo iskuul wadooyin waxa la hayay aan arkeen de waxa u baahan ma filayaan inaan wadanka wadi kareen Cabdishakuur Day Maxamed Hon Cable TV